السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalayaal, waxaan kusoo guda jirnay maaragtay ka sheekeynta relationship-ka ama xiriirada lala sameeyo dadka narcissistic ah, rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdaan. Waxaan maanta insha Allah ka sheekeyn doonaa xiriirka maaragtay narcissigu maraaxiisha uu maro iyo heerarka uu maro. laakiin taynaan maaragtay bilaabin, waxaan idin ka codsanayaa codsi yar oo ah inaad channelka subscribe siisaan, like na siisaan, maaragtay aad share gareysaan, waayo waxaa jira dad badan oo ku hareeraysan yihiin dad narcissiga laakiin aan ogeyn maaragtay halkii noloshooda ay ka khaldan tahay. waayahay xiriir kasta oo ka dhaxeeya wiil iyo gabadh waxa uu maraa dhowr marxaladood ama dhowr heer. laakiin ruuxa narcissiga marxaladda koowaadba ee uu xiriirka ku bilaabo waxa la yiraahdaa love bombing, oo af Soomaali ku noqonaysa duqeyn jacayl, yani qofka in maaragtay jacayl fara badan lagu qarqiyo. marxaladan qofka waxa uu noloshiisa u soo galayaa yani narcissigu sidii inuu yahay maaragtay badbaadiye oo uu noloshooda ka buuxinayo jacayl, danayn, damqasho aan maaragtay xad lahayn, ilaa heer aad gaadho aad istiraahdo qofka sidan u wanaagsan, u jacaylka badan, u naxariista badan, yani milaawaaba malaa'ig, yani wanaagiisa, yani sida uu maaragtay 24 saacadood buu ku fariimo kugu soo diraayo, kaaga warhaynayo, uu maaragtay arrimahaaga uu og yahay, arrimaha ku quseeyo uu maaragtay u dhageysanayo, dhibkaaga oo dhan uu maaragtay dhegta u raadicinayo, waxaad jeceshahay, waxaad neceb tahay, yani marxaladda يعني shawigaagu siduu yahay. marxaladan qofka narcissiga ay wuxuu kugu noolaysiinayaa jawi jacayl oo heer sare ah, yani heer sare ah oo aad ku noolaatid maaragtay sidii inaad riyo ku jirtid oo kale. waayo wuxuu doonayaa inuu kusoo xirogeliyo qalbigaaga, maaragtay aad u dego, aad jeclaatid maaragtay si aad yani si daran waliba aad u jeclaatid, maaha si dabiici ah. maaragtay waxa uu ku dadaalayaa inuu maaragtay u ekaado qofka aad doonaysay, yani qofkii aad jeclayd inuu ekaado. wuxuu isku dayayaa inuu maaragtay qaab fikir lamida uu ku tuso, ku dhahay yani arrintaas ku fikir bayn ka nahayba, yani waxyaabaha ka sheekeynayso, waxyaabaha jeceshahay, aflaamta aad daawatid, wax kasto aad danaysid uu ku dhahay aniguna saas oo kale waxaa sandanaya, oo ku sawir maaragtay inaad tahay qofkii kaliya taale uu maaragtay fikirkaaga uu isku mid noqdo. waxa uu halkaasna maaragtay waxa uu gacanta ku dhigayaa bogjilaycaaga, yani halka aad u jilicsan tahay oo dhan ay gacanta ku dhigay si uu hadhow toole bartan aad u jilicsan tahay uu ogaado inaad u jilicsan tahay, uu ku maroojiyo oo maaragtay kugu dhibo. waxa uu ku dadaalayaa qofkan maaragtay narcissiga 24 saacadood inuu mashquul ku geliyo oo uu ka mashquuliyo asxaabtaada, ehelkaaga, qaraabadaada, si aan noloshaada ugu soo harin cid aan isaga ahayn, oo aad maaragtay dhibaatadaada isaga uu kala yani kula soo yeerato ilaa aad cid kaleba u furmi weydo isaga ama yani iyada mooyaane. sidaas ayaanad maaragtay ku jiraysaa. laakiin marka uu qalad yar ka arko, yani wax yar oo khalada, waa bini'aadan baynahay, waxa uu kala noqonayaa si kedis ah wixii uu ku baray oo dhan, yani jacayl, danayn, ixtiraamid, dhageysi, waqti siin, sheeko, mar kaliya ayaad qofkii waayeysaa. 24 saacadood aan maaragtay ku dhigi jirin ee xiisaha iyo jacaylka maaragtay ku hayay. markaas ayuu maaragtay qofku wuxuu naftiisa ku oranayaa maxaa dhacay, soonaki shalay isku wacnayn ee isjeclayn, sidee wuxuu jiraan, halkii wax ka khaldameen. markaas marxaladda labaad ayaa toos u soo galaysa. marxaladda labaad oo ah maaragtay silent treatment ama yani aamusnaan ciqaabid ah. waxa looga jeedaa magacan waxa looga jeedaa inuu afka qofku ku buuro bilaa sabab ama sabab yar oo maaragtay aan macno weyn lahayn, oo iska dhigo ruux ka cadhaysan, yani muuqiisa mar kaliya ayaad waayeysaa. fariimad marka waxaad bilaabaysaa inaad fariimo u dirtid, telefoon garaacdid, raaligelin aad samaysid, aad maaragtay ma garanaysid waxaad gashay adigu, laakiin raaligelin baad samaynaysaa qofka. waayo qofka noloshaada waxa uu ka noqday mid daruuriya oo aanad maaragtay ka maarmi karin, aasaasiyaadka noloshaadu ka mid noqdo, waayo hore ayuu beerka kaala baxay. marka adna waxaad bilaabaysaa maaragtay inaad ficiladiisa ama waxyaabahan uu qofkan sameynayo narcissiga inaad cudurdaar u samaysid, tiraahid midhaha waxaasaa dhacay. maalan laga yaaba shaqada ayaa ku badan ama shaqada ayaa maaragtay ciriiri ka haystaa, dabeetana taas halkaa marka adigu naftaada maaragtay cudurdaar ku aamusiiso
waxaad sameynaysaa inaad u dulqaadatid maaragtay dhacdhaca iyo maaragtay dhaqan xumada iyo yasidda iyo wax kasta oo maaragtay soo socda oo uu kugu sameyn doono. marxaladda saddexaad maaragtay ee xidhiidhka narcissistic waxa weeyaan maaragtay gaslighting ama maaragtay in shaki gelin. marxaladan maaragtay shaki gelinta la dhahaa ama gaslightingka wuxuu bilaabayaa maaragtay inuu kaa shaki geliyo naftaada, yacni caafimaadka maskaxeed, maaragtay uu daciifiyo kalsoonida naftaada, waxa uu ku dareensiinayaa inay wax kaa qaldan yihiin. sidoo kale waxa uu bilaabayaa inuu dusha kaa saaro tuhun aanad gelin, sida yacni beenaley ayaa tahay ama dad kale ayaad la socotaa, yacni khiyaamo. mid kalena ogow arrimahan uu dusha kaa saaraya qofka narcissistic uu ku leeyahay waa tahay yaad ogtahay adigu inaad ahayn, waa mid isaga maaragtay ceebihiisa ah oo isaga dusha ka saaranta, laakiin adigu maaragtay kugu kala rogaya. tusaale mathalan yacni waxaaba maaragtay isaga aad khiyaamo ku qabatay qofkan narcissistic isagoo qof kale kugu dulwada, markaad ku taahid waxaad sameynaysaa wuxuu qoranayaa adiga ayaa maaragtay meel baad soo heshootay maahano dee gurigan saakin kuma tida, waxaad rabtaa inaad balaayo abuurtido gurigan maad rabin cid kalaad soo heshootay sooma, ama markaad ku dhahdo meel kalaad soo heshootay inaad adigu naftaadii maaragtay difaac gashida tiraahid ma anu saamayihi, anu ma khiyaameeyo, anu cid kale lama socdo, inta tiisiba iska iloodid maaragtay tii isaga aad ku haysayba. ama uu ku dhahaba maaragtay ma xasuustaa markaad sidaa igu tiraahday arrintaa igu tiri, adiga ayaa u sababa maaragtay inaan cid kale kugu hoos wado, waayo adiga ayaa iga gaabiyey, adiga ayaa maaragtay xuquuqdeydii siin waayay, taasaa keentay in anigu maaragtay xumaantan aan ku dhaco. dabeetana halkaas adigu maaragtay xisaab isla gelaysa halkii aad isaga xisaabin lahayd maadaamaad ku haysay. marxaladda afraad maaragtay waxaa la dhahdaa devolution ama taqliilu shan, waa qiimo tirid qofka maaragtay in qiimihiisa hoos loo dhigo. marxaladan maaragtay wuxuu bilaabayaa inuu qofku maaragtay qiimahaaga hoos u dhigo oo uu kugu khaldamo, laakiin yacni khaladka kugu khaldamayo maaha mid toos oo maaragtay saasaa tahay toos ku odhanayo, wax hoos maaragtay ayuu arrinta ayuu maaragtay arrimaha hadallada hoos dhigidda hoos buu kugu dhigayaa, sida inuu ku dhaahdo maaragtay yani adigu arrintaa ma fahmaysid ama fahankaaga wuu yar yahay, ama arrintan maaha maaragtay arrin adigu waxba ka taqaanid, hadaad ka xumaataad ku tahay maxaad hadalka noocaas igu leedayna kornay waan kula kaftamayay. mathalan laga yaabo inaan baa maalin sheegayso wax tiri wuxuu ninkaygu igu dhaahdaa waan qurux badan ay bitir, laakiin mar walba wuxuu igu dhaahdaa bitir waad luqa dhoodhooban tahay, markaan ku dhahaa maxaad waxa igu leedayna wuu qoslaa wuxuu igu dhahaa waan kula kaftamayay. wuu dareemayaa qofkana maaragtay inaad waxaan dhibsanayso, walihaada sabab ayuu maaragtay kugu odhanayaa hadalladan, waayo qiimahaaga ayuu rabaa inuu kalsoonida naftaada aad ku qabtid in hoos u dhigo. marka wuxuu qoonay waan kula kaftamayay ma intaasaad ka cadhootay oo cidbo kale ma kaftami kartee, qofkuna maaragtay dareenkiisa in maaragtay la yareysta ma qof markuu waxa waan ka xanaaqa bas stop qofku waxa waan ka xanaaqa deetana uu saa maaragtay marba kugu soo celceliyo hadalka aduna markasta aad ka xumaatid aad naftaada ku tiraahdid u kaftamayay maaragtay saa ku joojinafay, laakiin naftaada mar walba wixii lagu celceliyaa way sugmaan baa la dhahdaa. ku celcelintaas faraha badan naftaada kalsoonideeda haysay ayaa ku dhaawacmaysa, xataa hadaad isku daydid maaragtay naftaada ku tiraahdid waa ka kaftan. isagu laakiin qofka narcissistic isaa kuma joogayo ee uu sii wadaya mar walba maaragtay kor buu sii kicinayaa qiimo rididaadii iyo hoos u dhigidaadii. ogow qofkan marna kama aha maaragtay kaftan kama aha, wuxuu ku talagalsan yahay inuu maaragtay qiimahaaga uu rido oo ku caayo waxna aan lagu qabanin, yacni aan lagu qabanin maaragtay wax la dhahaa waxaas ayaad samaysay aan ku qaban, kalsoonidaaduna dantaa si yaroo maaragtay fudud ay ku baabaado ay ku dhimato. dabeetana halka maaragtay kalsoonidaadii ay soo gaadho dhaawac weyn, aad markaliya qoftaadii isku kalsoonayd ama qofkaagii 100% isku kalsoonayd saragtid adigoo maaragtay nuqsaan dareemaya oo kalsoonidaadii maaragtay aanay ku taagnayn maaragtay lagu fiican ku taagnayn. xaaladda marka halka ay tahay marxalad shanaad ayaa halka maaragtay laga galay. marxaladda shanaad maaragtay waxa la dhahdaa discard ama tuurid. markaliya tala ayaad maaragtay arkaysaa isagoo qofkii raba inuu ka takhaluso, inuu ka tago, inuu iska ka furo maaragtay si bila hordhac, waayo hore wuxuu diyaarsaday qof kale, waayo ruuxa narcissistic ay talaabadan tuuridda
ama qofka maartay inuu iskaga tago ma qaadaan ilaa uu cid kale maartay diyaarsaday mooyaan ma danaynaya joogitaankaaga iyo dareenkaaga waxaaba uu maartay u dhaqmaya sidii isba aqoon qof maartay aqaanaba aydaan hayn oo kale maartay dhaqamada la yaab kale uu leeyahay ruuxa narjisiga ay waxa weeye yani hadii kaba soo qaad yani waa bas qabtaan tusaale uma dhaqmayo sidii maartay qof guri leh oo kale xuquuq in lagu leeyahay yani muhiimad ma siinayo inaad joogtid inaad maqan tahay muhiimad ma siinayo waxaad arkaysaa maartay go'aamada si doonaan bay iskaga gaarayaan waxay doonaan bay sameynayaan waxaan u badan yihiin dadkan maartay narjisiga ay xilligan iska dhiga ama sidooda inay yihiin dad xiriir badan sameeya oo maartay dad khiyaamada iyo gogol dhaafka iyo xumaanta faaxishada ah dad yaqaana ay u badan yihiin marxaladan tuurida waxa uu bilaabay inuu qofka maartay inuu qof saddexaad soo geliyo dhexdiina laga yaabo yani xaas kale adoon yahay maadaama bulsho muslim haday nahay xaaska labaad banaan tahay laga yaabo inuu xaas labaad idin soo dhexgeliyo ama hooyadii ama qaraabada xataa ilmaha haduu doono noqdo markaas wuxuu bilaabay ujeedka uu ka leeyahay qofkan saddexaad waxa weeyaan inuu ka careysiyo oo ka hinaasiyo mar walba qofkan ku barbar dhigo oo ku dhaho qofkan baa waxa sameeyay qofkan waxa soo sameeyay baadu way waxa sameynayso deetana halkaas ka falcelinta adigu aad ka falcelinayso maartay careysiintaas iyo ka hinaasinta uu sameynayo ayaa maartay wax weyn u ah oo qofkan shidaal ah qofkan narjisiga uu ku mabsuudaya uu ku farxaya inuu maartay diiqad ku galiyay marxaladda lixaad waxa la dhahdaa hofarin had marka maartay maraaxiisha soo dhamaadeen oo maartay aad qofkii iska nacsiiyay oo aad maartay isku daydid inaad naftaada inta hadhay aad urursatid karaamadaada inta hadhay aad urursatid oo aad xiriirkan iskaga baxdid maadaama aad maartay nafsiyan aad u jabtay qofkan uu maartay nolosha ku gaadkay markaas ayuu u arka inaad xiriirkan rabto inaad ka sii baxday ama aad maartay oo furtay ama duniyada ku furay oo gabartayna ay furiin ka qaadatay dareemo qofkii inaad talaabo ka qaadayso yani inaad ka tagtid niyadiisa ka saartid aad doontid wuxuu bilaabaya marxalad lixaad oo ah hofarin waxa weeyaan inuu isku dayo qofkii inuu soo ceshado inuu maartay mar labaad iska jeclaysiiyo oo maartay uu go'aan ku gaaro markuu ku arkay inaad maartay sii socotid oo aad go'aan ka go'an yahay inaad ka farxalanaysid ayaa wuxuu sameeynaya si kasta oo dib ugu soo celin lahaa xiriirkan uu ku cudur daaranayaa uu maartay wuxuu qoranayaa waan qiimahaagi baan gartay igu soo noqo uu ku dhaaranayaa waxaan maartay wuxuu qoranayaa laga yaabo waan xanuunsanayay waan soo daweeyay waxba iga siihaa imika caadi baan noqday waan isbedelayaa waan maartay fiicnaanayaa waxaan kula dhaqmayaa si wanaagsan waxaan oo dhan kama aha run waa jirid waa matalid hadii aad maartay u qalbi jileecdid oo aad maartay aqbashid hofrinkaas iyo maartay jacaylkii xiriirkii dib lagu soo celiyo dabinkaas maartay aad ku dhacdid waxa dhacaysa inay si ka xun sidii berigi hore ay kula dhaqmeen sidii ay maartay nafsiyadaada u jabiyeen si ka daran inay kula dhaqmaan ayo waxay ka xun yihiin oo ka cadhaysan yihiin sidee baad la'aantay u noolaan kartay yani seebaad u dhiman weyday markii aan maartay ka tagay seebaad u dhiman weyday oo la'aantay u noolaan kartay dadka narjisiga maartay waa dad wax jeclaan kara weligoodba maaha naftooda weligood ma dareemi karaan mana jeclaan karaan waxaan oo dhan waa ka matalid un bay ka tahay waxaan oo dhan waa matalid marba maartay dantooda ciday ka arkaan ay qalbiga maartay ka xadaan markay dantaa ka dhameystaan dantu waxay doontaa haato inay maartay qofka iska tuuraan oo ay ka tagaan haddana ay mar walba maartay markay arkaan qofkii inuu mar labaad lugaha isku taagay oo kalsoonidiisii soo ceshtay oo qof jiro joogo noqday ay haddana mar labaad ku soo celinayaan xiriirkii dib ugu soo celinayaan dabeetana dabinkaa qofku marka haddii uu yeelo uu ku soo dhaco toddobaad ama 2 toddobaad ayuu wuxuu sameynayaa love bombing marxaladii koowaad oo kale inuu qofku jacayl ku qarqiyo oo qofkii maartay jacayl iyo danayn iyo xiise uu maartay ku qarqiyo haddii qofkan aanu ka bogsanin xiriirka qofka narjisiga jacaylkii uu hayay
mar labaad maaragtay ayuu iskala ridayaa oo maaragtay noloshiisii sidii berigii hore kale uu mar labaad gacanta ka saaraya ruuxa narjisiga. laakiin ruuxa narjisiga sidii hore kale maaha. 2 toddobaad ama 2 toddobaad lama dhaafayso maaragtay marxaladan hofarinku, waayo mar labaad markuu 7 ama 2 toddobaad dhamaad wuxuu kula soo baxaya wajigiisii dhabtaha, wajigii shaydaanka ahaa, silici berigii hore uu ku mariyay mid ka daran. haddaad diido hofarinka yani in xiriirka lagu aad dub ugu soo noqoto xiriirkii maaragtay sunaysnaa dub ugu soo noqoto, haddaad diido waxa uu falayaa inuu sumcadaada dilo oo maaragtay cid kasta uu xumaan kaaga sheego oo meel kasta wax aanad weligaa gelin oo aanad gudin oo raada waxaas qofkaas sameyn jiray saasuu yahay miya ogtihiin sumcadaada dhulka uu la galo. wuxuu sidoo kale isticmaalaa dad loo bixiyay fly monkeys oo ah taageerada doola, yani waa dad si aad ugu dhow qofka narjisiga, laga yaabo inay qaraabo yihiin, laga yaabo inay meel kala shaqeeyaan. dadkaasi waxay ka caawiyaan inay sumcadaada la dilaan. sumcadaadan uu dilayo uu faafinayo wararka beenta ayay isaguna ku caawiyaan faafinta wararka beenta. insha Allah maalin gaara ayaan maaragtay ka sheekeyn doonaa fly monkeys ama daanyarada duulaa dhibaatada ay gaarsiiyaan qofka la dhiban narjisiga la dhiban, yani qofka narjisigu dhibaateeyay ee dhibta iyaguna gaarsiiyaan dadka daanyarada duulaa. insha Allah maalin baan ka sheekeyn waayo dhibtoodu dhib yar maaha, dhibta nafsiga ay qofka gaarsiiyaan dhib yar maaha. insha Allah xalqadan maanta intaasay ku dhamaatay. intaynu xalqada xigtay insha Allah aynu ku kulmayno oo ah inaan maaragtay sheekadeeda inoo soo dhiibatay oo tala doonaysa insha Allah waa inoo aragti dambe. channelkana hala taageero, fadlan share gare, waayo dad badan oo waxa jira la dhibaataysan xiriiradan maaragtay sunaysan ama xiriirka narjisiga. insha Allah si ay u arkaan ay wacyigelin ugu noqoto.